بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى مقال كذا وحين كأهل دونا go-aankii asxaabigii weynaa ee Suhayb ar-Rumi iibitaanka kasta iyo ganacsi kastood Allah la gasho maxaa ka wanaagsan oo hadalkii nabigeena calayhi salaatu wasalaam ku yiri asxaabigii weynaa Suhayb ar-Rumi markuu isoo hijrooday magaalada Madiina waxa uu ahaa Allah ka raali noqday Suhayb ar-Rumi amiirkii bin Tayyib bin Murrah oo kamid ahaa qabiil dega Makka oo aad loo garaaci jiray laguna aysan jiray islaamnimadooda Suhayb ar-Rumi Allah ka raali noqday markii uu helay xurriyadiisa waxa uu ahaa mid iskii u shaqaysta ilaa uu ugu dambeyntii meel fiican ka gaaray ganacsigiisii iyo shaqadiisii Allah ka raali noqday Suhayb ar-Rumi markii uu maqlay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo dadka diinta ugu yeedhaya ayaa waxa uu go'aansaday inuu nabiga u tago waana uu tagay xaqaas ayuuna diinta islaamka ku qaatay haddaba markii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ogolaaday asxaabtiisii inay hijroodaan oo Madiina u hijroodaan ayaa Suhayb ar-Rumi waxa uu damcay inuu asxaabta raaco isagana u hijroodo laakiin waxa ka diiday oo is hortaagay nimankii Quraysheed iyaga oo diidan inuu Suhayb hijroodo markay Quraysh ogaatay inuu Suhayb ar-Rumi baxsaday waxa ay ka tabadartay ciidan iyo askar aad u fara badan si ay ugu soo celiyaan ama ugu yaraan lacagtiisii iyo hantidiisii badnayd ay uga soo reebtaan Suhayb ar-Rumi waxa uu dhigay hantidiisii meel uu isaga Ilaahay subxaanahu wa ta'aala isla og yihiin oo qof kale la ogeyn inta uunan baxsan ciidankii laga dabadaray Suhayb ar-Rumi waxa ay ku gaadheen dhaxbartamaha isagoo sii socda markii ay gaadheen Suhayb ar-Rumi waa arkay ayaa waxa uu ku yiri Qurayshay waad garanaysaan inaan ahay kiina inigu tuuritaanka wanaagsan xagga leebka wallahi baan ku dhaartay isoo gaari maysaan ilaa aan idinku gano ama idinku tuuro wax kasta oo leeb oo agteeda yaala intaas kadibna aan idinku garaaco seeftayda inta idinka soo hadha laakiin waxa agteeda yaala buu ku yiri Quraysh waxa agtiina aad uga wanaagsan oo aad u jeceshihiin haddii aad doonaysaan hantidayda waa inay tilmaamay Suhayb ar-Rumi Allah ka raali noqday waa uu tilmaamay hantidiisii meesha uu ku aasay nimankii Quraysheedna dib ayaa ay ugu noqdeen Makka wayna ka tageen intaas kadib Suhayb ar-Rumi waxa uu u jeedsaday Madiina si uu ula kulmo nabiga calayhi salaatu wasalaam qofina ma ogeyn waxa uu sameeyay Suhayb ar-Rumi laakiin Ilaahay ayna waxba ka qorsoonin ayaa waxa uu diray malku Jibriil nabiga calayhi salaatu wasalaam si uu arrinka u soo ogeysiiyo markii uu Suhayb ar-Rumi uu soo gaaray Madiina nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yiri rabiha al-bay'u aba Yahya kaasi uu faa'iiday iibkaasi uu faa'iiday Suhayb ar-Rumi waxa uu khasaaray waxoogaa yaray oo adduunka haystay laakiin waxa uu ku guuleystay oo helay janno aad u weyn haddaba su'aashu waxa ay tahay hantideena ma u horay marsanaa waxa ay anfacaya maalinta la isxisaabinayo mise waan dib dhiganaa ilaa inta ay geeridu inooga imanayso asxaabta jawaabta xaqiina weeyaan insha Allah ta'ala inta baynu ku soo koobaynay barnaamijkeena wassalaamu calaykum wa rahmatullahi